فري واحد صعدين هاي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. maanta maalmihii weynaa oo taariikhiga ah ee Soomaaliya waayaan tahay maanta waxaa xafiiskii madaxweynaha madaxweyne Abdullahi Farmaajo xilwajiskii waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan qaybaha kala duwan bulshada hay-adaha kala duwan dowladda dhammaan inaan u mahadceliyo afartii sano la soo dhaafay si wanaagsanay ee dalkan uga soo shaqeeyeen waxqabadka weyn ee maanta aan ku naaloonayna ee sababay waxa maanta dhacay iidantiga maanta dhacaya inuu dhaco sabab u ahaa dadka ka soo shaqeeyo dhan ama dowladda dhexe joogaan ama maamul goboleedyada dalka qaybihiisa kala duwan joogaan aad iyo aad ayaan rabaa inaan u mahadceliyo oo aan idhaahdo shaqada aad soo qabateen oo wanaagsanayd ayaa sababtay maanta meeshan wanaagsan inaan soo gaaro marka taas dadka Soomaaliyeed iyo hay-adaha dowladda ee kala duwan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada leh ma haddaasaan keenaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan hawshaan waa hawl laga soo wada qayb qaatay waa ku mahadsanyahay sidoo kale waxaan rabaa inaan fursaddan u mahadceliyo beesha caalamka ayadana afartii sano aan soo joognay xafiiskayga iyo dowladda Soomaaliya madaxweynaha waa intaba si wanaagsan uga soo shaqeeyey soo saaciday soo garab taagnaay muxuu ahaay maanta noo suurtageliyey inaan meesha soo gaarno nagu kaalmay ayaguna waxaan rabaa inaan mahadceliyo si khaasa waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo dalalka ciidamada AMISOM u soo diray Soomaaliya ee wiilashooda iyo gabdhahooda dhiigooda Soomaaliya ku baxay qaar ku dhinteen qaar ku xuryaameen carruur badan ku agoontooday oo dalalkoodii maanta jooga welina qaarkood u taagan yihiin in ay Soomaaliya ka sii saacidaan sidii ay lugeedu u istaagi lahayd waxaan leeyahay ayaguna aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawaaw oo insha allah kuu fududahay khayr badan guura ku rajeyna aad بسم الله الرحمن الرحيم. وحن أطلع رواية معلومات جميلة هواي. سيدا حفظ مدرج كيسة تغاريسة وقت كل شيء كاسيسة كان. سيدا حفظ مدرج الموجود عند علي ومعلم تاريخية ومدى الصوماليين بعالم ميل كستا أرخيان سيدا السلول سيدا نظامها dowladnimada runtii waa maalin taariikhi ah waxaan rabaa inaan mahadceliyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ugu bishaalaynayaa dowladdani waa dowlad shacab idinkaa iska leh idinkaan dib isugu soo celinaynaa waxaan idinka codsanaynaa inaad la shaqaysaan dowladdan oo aad gacan siisaan idinkaa iska leh waxaan idinka rabaa inaad nagala shaqaysaan ayaan doonayaa dowladdan ilaahina waxaan ka rajaynaynaa inuu naga dulqaado colaadda iyo abaarahana haysta إلهي أنو نقولنا أنا سوى ذا عفنا كل يوم لكن أنا قادر نحط إن هذا يفك عني وأنا سوى يجيله عشان يجوكها صوص صعدة أو شقينا وعن رباعنا ما نعرفه ليش عارف سنين أنا أقول تعامل جديد في الجودة عن ماشي تاج جوكتين سو جارتو عامل صوم يوم نفط ورا أو بدل جوكتها كمان كل فاعل أقول هذا قاعدين يبغى على كذا كذا يفوز يبغى حالة قارئ يكون
waddankan labaatan iyo lix sano wuxuu ku jiray dhibaato iyo burbur iyo qax iyo dowlad la-aan hal habeen iyo laba habeen iyo 5 bilood iyo 6 bilood waxay kuma hagaagi karaan waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inay fahmaan intii aan wax burburineynay ama dhib dhacayay in lamida yaa loo baahan yahay dalkaas inuu istaago oo caalamka la dhaqmo aniga shakhsi ahaan waxaan ballan qaadayaa haddii ilaahi yidhaahdo inaan idiin keeno dowlad aad ku kalsoon tihiin oo magaciina sharafkiina kor soo qaata oo caalamka la dhaqata iyadan waxaan ka rabaa shacabka caalamka inaad la shaqaytaan oo aad soo tartantaan inaad nabadgelyada kala shaqaysaan dowladda inaad wixii waajibaadkiina aad gacan ku siisaan dowladda waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi وعليكم السلام. Thank you.